السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada darsigeeni ee maanta waxaan rabnaa inaan halkan uga hadalno waxa loo yaqaano for loop. Shalay waxaan kusoo hadalnay while loop. While loop waxa loo isticmaalaa markii la rabo in la soo celiyo nambaro ama magacyo waxay ahaadaanba inta aad rabtid ayaa la isticmaalaa in nambaro ama wax la mid ah aad soo celiso. maantaydan for loop ayaan halkan uga hadlaynaa. For loop waxay la shaqeysaa sida list ayay la shaqeysaa, table ayay la shaqeysaa, waxaa kaloo la shaqeysaa strings ayay la shaqeysaa, inta badan waxay la shaqeysaa sequence markaan leenahay waxaan ka wadnaa magacyo ha ahaadaano ama nambaro ha ahaadaano oo u qaabaysan sida si taxan ayay la shaqeysaa inta badan. Marka tusaale for loop waxaa loo isticmaalaa sida tan. Waxaan leenahay waxaan leenahay ama x u bixi meeshan x variable oo x in waxaan leenahay python oo x in python waxaan leenahay marka print x. halkan haddaan dhahno maxaad u malaynaysaa in noo soo baxayo? aan tijaabino run the program. waad ujeedaa sida loo soo daabacayaa waxaa ah si oo sequence ah oo xaraf walba wuxuu ku aadan yahay line cusub. Python waxaa loo soo daabacay waa b waxaa loo soo daabacay line cusub, y sidoo kale t sidoo kale waxa waaye line cusub, xaraf walba line cusub ayaa loo soo daabacay. kan for loop x waa variable halkii marba waxay keedisaa hal xaraf ayay keedisaa, waxaynu soo daabacdaa hal weliba xaraf walba sadar cusub ama new line ayay kusoo daabacdaa. sidaas la mid ah waxaan isticmaali karnaa magacyo ama strings ayaan isticmaali karnaa. Strings waxaan kusoo sheegnay combination of characters, xarafo la isku geeyay sida magacaaga iyo wixii la mid ah. marka sidaas si la mid ah ayaa waxa kala meeshan for loop markaan joogno waxay muhiim u tahay haddii list aad haysato ama dad badan magacyadooda aad haysato aad rabto magac walbo in line cusub lagu soo daabaco waxaad isticmaali kartaa for loop ayaad isticmaali kartaa. tusaale haddaan u baahno inaan soo daabacno kan magacaan amal waxaan isticmaalaynaa square bracket ayaan isticmaalaynaa. waad xasuusteen square bracket waxaan soo isticmaalaynay markaan soo maraynay list markaan soo maraynay. sidaas daraadeed for loop waxay la shaqeysaa list ayay la shaqeysaa, table ayay la shaqeysaa iyo string ayay la shaqeysaa. marka aan probayna waxaanu leenahay magacayga Ahmed, magaca kale waxaanu leenahay Cali. tan haddaan soo daawano maxaad malaynaysaa in noo soo baxayo? aan probayno waxaanu leenahay run the program. waad ujeedaa Ahmed line cusub, Cali line cusub, Adam line cusub. marka muhiimadda for loop ay leedahay ayaa ka mid tahay sida tan inay kugu soo daabacdo magacyada aad rabto magac walbo line cusub ama sadar cusub inay kugu soo daabacdo. ama tusaale haddii boqolaal tiro ama yacni boqolaal taas oo tiro ba ahaadeen ama waxay ahaadaanba haddaad rabto inuu soo daabacdo maanta oo dhan inaad qortid looma baahno. tusaale meeshan hadda waxaan isticmaali karnaa sida magacyada u isticmaalnay si lamid ah waxaan u isticmaali karnaa nambaro ayaan isticmaali karnaa oo waxaanu leenahay 2,6,7,8 ayaanu leenahay. sidaas si lamid ah ayaanu soo daabaci karnaa. waa ujeedaa waa sida tan ayaanu soo daabaci karnaa. ka waran haddaan u baahno inaan soo daabacno nambaro badan ilaa 200, 300, 400 haddaan rabno inaan soo daabacno maxaan sameynaynaa? sida tan ma u qoraynaa? may dhibaat waa sida tan uma qori karno. marka sidaas darteed waxaan isticmaalaynaa range ayaan isticmaalaynaa haddaan rabno inaan soo daabacno magacyo badan halkii marba. sidaas daraadeed waxaan isticmaali karnaa for loop x in waxaynu leenahay marka meeshan waxaan isticmaalaynaa waxa loo yaqaano round bracket ayaan isticmaalaynaa oo waxaynu leenahay 20. waxaan rabaa 20 inuu as range lagu soo daabaco. marka waxaan sameynaynaa sida tan ayaan sameynaynaa. waxaan isticmaalaynaa function la yiraahdo range ayaan isticmaalaynaa. aan soo daabacno waa ujeedaa 0 ilaa 19. 20 meesha laguma soo diray sababtoo ah tirada computerka wuxuu kusoo bilaabaa mar walba 0 ayuu kusoo bilaabaa. sidaas la mid ah haddaan u baahannahay in tiro khaas ah lagu soo bilaabo ilaa dhammaadka haddaan rabno maxaan isticmaalaynaa sida tan ayaan isticmaalaynaa oo waxaynu leenahay kusoo bilaabo
toban kasoo bilow 10 ilaa 20 sidaan ayaan isticmaalo waxaan leenahay print waad ujeedaa 10 ayay kasoo bilaabanaysaa ilaa 20 waa 0 ilaa iyo 9 waa laga soo booday sidaas la mid ah haddaad u baahan tahay yacni farqiga ama wax u dhexeeyo inay ahaadaan 2 ama 3 wax u dhexeeyo in farqiga u dhexeeyo uu ahaado number 2 ama 3 ama waxa rabtidba waxaad leedahay farqiga ha ahaado number 4 hata iska dheh farqiga ahaado marka waxaad leedahay run the program waad ujeedaa 10 ayaa lagu soo bilaabay 14 ku dar 18 marka sidaas ayay u shaqeynaysaa marka for loop tan ayay u shaqeynaysaa waa ujeedaa mar walba waxay la shaqeysaa list ay la shaqeysaa table ay la shaqeysaa iyo stringska ayay la shaqeysaa marka maanta darsigeena waxaan uga hadlaynaa waxa loo yaqaano for loop waxaan filayaa wax badan in laga fahmay channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe sar like saaxiibkaaga la wadaag wixii kale tusaale waxaad noogu reebi kartaa commentiga ayaad noogu reebi kartaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.